markabkii ugu horeeyay oo ay leedahay shirkadda Djibouti Shipping Company ayaa xalay saqdi dhexe ku soo xidhay dekedda Berbera. markabkan oo ah nooca konteenarada xambaara ayaana shixnadiisii ugu horeysay dhigay dekedda Berbera iyadoo oo markabkani uu ka soo shiraaqday deked ku taala dalka Turkiga. munaasabadan xariga jarka ah oo loo sameeyay shirkaddan Djibouti Shipping Company ayaa waxaa ka soo qayb galay maryaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi iyo maryaha shirkadda Djibouti Shipping Company aadan Muuse Dugsiye. xariga jarkan loogu wanqalay looguna daahfuray shirkaddan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wakiilka shirkadda Fast Track Shipping ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Saciid Macalish iyo waliba gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliland Captain Yuusuf Cali Nuur. sharaf bay noo tahay in naga soo qayb gashaan daafurka Shipping Line kan cusub Djibouti Shipping Line Company oo aanu halkan wakiil wanahay shirkaddan cusub Fast Track Shipping. waxa laga yaabaa hore inaad nagu barateen xagga cargo-ga anagoo Yaasiin Shipping ah, laakiin shirkaddan kalena waa sister company, waa xafiiska labadan wada shaqeyn xagga konteenarada ah. shirkaddan Djibouti Shipping Line waxa laga leeyahay wadanka indiriska nahay walaalaha nahay ee reer Djibouti ayaa iska leh oo ixtiraam inaga mudan. marka waxay ka shaqeysaa iminka waxa weeye waa direct Turkey Djibouti Berbera. alaabta laga soo raro Turkiga Djibouti waxay ku imanaysaa 7 cisho, Berberana waxay ku imanaysaa maalinta 10aad. marka waxay guul u tahay iyo horumar dadka ganacsatada ahaa waa alaabtoodii si degdeg ah u helaya. waa ilaahay mahadi waxa weeye waxaad moodaa iminka tadawur aad u fiican ku soconaa sababta waa shirkadii 7aad 5 shirkadood bay ahaayeen waxa ku soo kordhay shirkadda RTW tanna waa tan Fast. runtii waxaad moodaa marka in dekedeeni iyadaan la furin ba horumarku nagu soo kordhay. marka ganacsatada waxay u tahay fursad fiican bay u tahay. Turkiga waxaan u maleynayaa laymankeenu way ku yaryihiin ma maleynayaa xagaas fursad fiican baan reer Djibouti noo keeneen Saciid iyo Axmed Faasiyo way ku maadsan yihiin. intaasi kadibna waxaa faahfaahin ka bixiyay shirkaddan iyo qorshaheeda maryaha shirkadda Djibouti Shipping Company aadan Muuse Dugsiye. horta waxaa sharafno inaan maanta xakan aan iskula kulanno wala qadayno wala sheekaysano taasi oo doonayna inaan nibarno shirkadda jadiidka haddii toole ku soo xiran doonta dekedda Berbera ee la yiraahdo Djibouti Shipping Company oo wakiilna ka tahay shirkadda la yiraahdo Fast Track oo Somaliland oo dhan wakiil uga. marka shirkadda Djibouti Shipping Company waxa la abuuray 2 sano ka hor. waa shirkad ay 100% dawladda Djibouti leedahay. marayhi guud ee ugu horeeyna aanu ka noqday shirkadaas oo iminka 2 bilood ba adeeg badda ka bilowday isku xiraya Turkiga Djibouti Berbera Boosaaso Muqdisho ilaa ma Kismaayo. voyage kani waa voyage kii labaad in kaga imanayna Turkiga taasi oo si directly aan ugu call garaynayno dekedda Berbera. taasina waxa weeyaan waa adeeg aan doonayno inaan insha Allah kula ambaqaadno ganacsatada rajeynaysa si kooban inay kaga soo qaadato cargo-googii Turkiga ilaa maaye Berbera. maryaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi ayaa isna sheegay in ay adeeg degdeg badan ay siin doonaan markabkan cusub ee shirkadda Djibouti Shipping Company ay leedahay. waxaan halkan ku soo dhaweynayaa Djibouti Shipping annagoo maamul deked ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxay taasi muujinaysaa in shipping linesku maalinta ka dambaysa ay soo badanayaan, ganacsiga Soomaaliland isbedelayo. waxaan anagu ballan qaadaynaa Djibouti Shipping Line iyo shibinadii horeba service iyo adeeg aad u wanaagsan oo maraakiibtu waxay ku xisaabtamaan timeka ay taagan yihiin dekedda. marka runtii timeka waxaan ballan qaadaynaa inaan dedejin doono, soo dhaweyn doono wixii caqabada iyo cabasho ah na waxaan jecelnahay runtii inaad nala socodsiisaan si mar walba service-ka aan u hagaajino. maamulihii custom-ku fadhiya
ka deked ahaan waxaan jecelnahay runtii inaanu serviceka customkuna uu dedejiyo oo sida ugu dhibta yar ay ganacsatada uga baxdo maalinta ka dambeysana waxaan jecelnahay inaanu sii improve garayno Djibouti Shipping waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawow servicekayga iyo waxqabadkayga iyo sida aan u soo dhaweynay insha Allah markabkan u horeeya ayaa ka dareemi doontaan ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi ayaa hadalka lagu soo dhaweeyay runtii farxad weyn bay tahay inaan kala soo qayb galo xafladan qiimaha leh ee lagu daahfurayo Djibouti Shipping Company oo runtii horumar inoo soo kordhay innaga dawlad ahaan ama ganacsatadeena wax weyn ka bedeli meelaha laga bilaabay oo Turkiga oo ganacsatadeenu ay xiriir toos la leedahay ama sida degdega ah ay u keenayaan waxay wadanka u soo gaarsiinayaan وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي جاه بولشة تي في مقالة Berbera